soo dhawaada saaxiibayaal meel kastoo aad joogtaan halkan waa channelka dabagalka wararka waa 30 bisha 6 sanadka 2026 qodobada ugu waaweyn wararka aanu xilligan idin haynana waxa kamid ah cabsi ka taagan magaalada Garowe dhaqdhaqaaqi ciidan oo xoog leh oo laga soo sheegay magaalada ciidamada Puntland oo la geeyay goobo kala duwan oo Garowe ay ku jiraan deegaanka ku dhow halkay ku sugan yihiin ciidamada ka diiwaan gashan dawladda federaalka Soomaaliya xiisada dawladda iyo Puntland oo ka sii daraysa iyo ra'iisul wasaare Xamza oo si dadban u weeraray madaxweyne Saciid Deni iyo madaxda kale ee ka soo horjeeda dawladda isagoo ku eedeeyay inay isku dhajinayaan xukunka maxay ka dhigan tahay in dawladda federaalka Soomaaliya ay dib u howlgelisay talisyada 54 iyo 26 ee xoogga dalka dood la xiriirta talisyadan ma ka howlgeli karaan deegaanada Puntland oo si weyn kaga dhex madaxda federaalka iyo kuwa maamulka Puntland ayaana xog waran ku eegi doonaa sidoo kale oo wararka kale ee daawan doontaan waxaa kamid ah xog cusub oo ka soo kordhay kulanka xasaasiga ah ee dhaxmaray madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo ra'iisul wasaare Abiy Ahmed iyo Mujtaba Khomeini oo si cad u sheegay in Iran ay xaq u leedahay inay samaysato hub nukliyeer intaasi saaxiibayaal waxay ahaayeen qodobada ugu door karoon warka channelka dabagalka wararka aad ku cusubtay channelkan kusoo biro subscribe saar muuqaalkana like saar share gareeyo la wadaag saaxiibada waxaa taatan kusoo dhawaataan faahfaahinta qodobadii aan idin soo sheegay xiisad amni oo si xoogaysanaysa ayaa laga dareemayaa magaalada Garowe kadib markii ay soo baxeen warar sheegaya in maamulka Puntland uu diyaarinayo howlgal ka dhan ah ciidamada uu hogaaminayo General Jimcaale kuwaas oo ku sugan duleedka magaalada Garowe saacadihii ugu dambeeyay ciidamada Puntland ayaa la geeyay goobo kala duwan oo Garowe ay ku jiraan deegaanka ku dhow halka ay ku sugan yihiin ciidamada ka diiwaan gashan dawladda federaalka Soomaaliya sida sheegeen ila wareeyay deegaanka dhaqdhaqaaqyadaas ciidan ayaa sare u qaaday walaaca shacabka iyadoo qaar kamid ah dadka degan magaalada ay bilaabeen inay ka fogaadaan goobaha ay ciidamadu ku sugan yihiin iyagoo ka cabsi qaba in iska horimaad u dhaco dhanka kale ila amni ayaa sheegay in ciidamada dawladda federaalka ay galeen heegan buuxa dadka deegaanka ayaa sheegay in shalay galinkii hore ay maqleen daryanka madaafiic iyo diyaar garow la xiriira oo ka dhacayay xeerada Ligle oo fariisan ay ku leeyihiin ciidamada federaalka xiisadan ayaa imaanaysa maalmo kadib markii madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Deni uu kulan la yeeshay siyaasiyiinta ka soo jeeda gobolka Nugaal isagoo sheegay in Puntland ay wajahayso waxa uu ku tilmaamay duulaan laga soo abaabulay Muqdisho Deni waxa uu sheegay in waajibkiisu yahay difaaca Puntland isla markaana uusan aqbali doonin in saraakiil ciidan oo ka tirsan dawladda federaalka ay ka howlgalaan Puntland xiisada hadda taagan waxay dib u soo nooleysay xasuustii iska horimaadkii ka dhacay Garowe sanadkii 2023 kaas oo sababay dhimashada in ka badan 30 qof iyadoo aan weli la ogeyn in dadaalo lagu dejinayo xaaladda ay socdaan shacabka magaalada ayaa muujinaya walaaca laga qabo in xiisadu isku bedesho iska horimaad hubeysan haddaba maxay ka dhigan tahay in dawladda federaalka ay dib u howlgelisay talisyada 54 iyo 26 ee xoogga dalka militariga Soomaaliya gaar ahaan qaybta 54 ayaa dhaqdhaqaaqooda laga dareemaya deegaanada Puntland dood la xiriirta ciidanku ma ka howlgali karaan deegaanada Puntland ayaa saacadii la soo dhaafay dhaxtaalay madaxda federaalka iyo kuwa maamulka Puntland ra'iisul wasaaraha dalka Xamza Cabdi Barre ayaa difaacay qorshaha ay dawladda ciidamada kaga qoranayso deegaanada Puntland waxaana uu tilmaamay inaysan faragelin noqon karin haddii dawladda federaalka ay tagto qayb kamid ah dalka sidoo kale maamulka Puntland ayaa tilmaamay in deegaanadaas aysan imaan karin ciidamada xoogga dalka iyagoo amray in garoomadooda aysan ka soo degi karin saraakiisha iyo mas'uuliyiinta dawladda federaalka ciidanka xoogga dalka gaar ahaan qaybta 54 ayaa hadda ku sugan deegaanada Puntland sida gobolka Nugaal caasimadiisa Garowe dhaqdhaqaaqyada ciidamadan ayaa waxaa diidan maamulka Puntland oo arka askartan kuwa qatar ku ah amnigooda iyadoo sidoo kale uu jiro khilaaf kala dhaxeeya dawladda federaalka ra'iisul wasaare Xamza Cabdi Barre ayaa tilmaamay inaysan jirin faragelin ay dawladda sameynayso balse ay gudanayso kaliya waajibaadka ka saaran dalka ra'iisul wasaaraha ayaa ku dooday in dawladda federaalka ay mas'uul ka tahay dalka oo dhan isla markaana ay shaqaale ka qoran karto meel kasta iyadoo xusid ay mudan tahay in dawladdu ay ciidan ka qoratay gudaha Puntland taasoo keentay in go'aano xasaasi ah uu qaato madaxweynaha Puntland
xamse cabdi barre ayaa si dadban u weeraray madaxweyne saciid deni iyo madaxda kale ee ka soo horjeeda dowladda isagoo ku eedeeyey inay isku dhajinayaan xukunka islamarkaana danta dalka ay ka hormarinayaan tooda. ugu dambeyn ra'iisul wasaaraha waxa uu soo hadal qaaday xaaladda siyaasadeed ee dalka gaar ahaan khilaafka xoogan ee haatan u dhexeeya filla Soomaaliya iyo golaha mustaqbalka isagoo sheegay in mucaaradku ay diidan yihiin in la daadajiyo doorashooyinka islamarkaana fursad la siiyo shacabka Soomaaliyeed. dhanka kale madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo haatan booqasho ku jooga magaalada Addis Ababa ayaa kulan miradhala waxa uu la yeeshay ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Ahmed oo ay ka wada hadleen arrimo xasaasiya. labada mas'uul ayaa kulankooda diiradda ku saaray arrimo ay ka mid yihiin xoojinta xiriirka taariikhiga ee u dhexeeya Soomaaliya iyo Itoobiya, kor u qaadidda iskaashiga dhinacyada amniga, dhaqaalaha iyo horumarka, iyo sidii labada dal ay kaga wada shaqayn lahaayeen xasiloonida iyo arrimaha istiraatiijiga ee gobolka Geeska Afrika. xasan sheekh oo kulanka ka hadlay ayaa ra'iisul wasaare Abiy Ahmed ugu hambalyeeyay guusha uu xisbigiisa ka soo hoyay doorashooyinka ka dhacay dalka Itoobiya isagoo u rajeeyay si ambaqaadida dadaalada horumarineed iyo xasiloonida dalkaasi. ugu dambeynna warar laga baahiyay warbaahinta caalamka ayaa sheegaya in hogaamiyaha sare ee Iiraan Mujtaba Khamenei uu sheegay in Jamhuuriyadda Islaamiga ee Iiraan aysan haysan doorasho kale oo aan ka ahayn inay horumariso hub nukliyeer si ay u xaqiijiso ammaankeeda ugana hortagto waxa uu ku tilmaamay hanjabaadaha kaga imaanaya dalalka cadowga. sida lagu sheegay wararka, hogaamiyaha ayaa ku buuriyay khubarada iyo saynisyahanada dalka inay si dardar leh u sii wadaan horumarinta barnaamijka nukliyeerka isagoo tilmaamay in xaaladda amni ee gobolka iyo cadaadisyada dibadda ay ka dhigayaan mid lama huraan ah in Iiraan ay yeelato awood ay isku difaacdo. hadalka la sheegay inuu jeediyey waxa uu dhignaa sidan: Iiraan ma haysato doorasho kale oo aan ka ahayn inay samaysato hub nukliyeera si ay isaga difaacdo dhinacyada cadowgeeda. wararka ayaa sidoo kale sheegaya in Tahraan ay ka fiirsanayso inay hakiso ama gebi ahaanba ay ka baxdo wadahadaladii diblomaasiyadeed ee la xiriiray barnaamijkeeda nukliyeerka islamarkaana ay dardargeliso dadaalada lagu horumarinayo tiknoolajiyadda iyo awoodda lagu soo saari karo hub nukliyeera haddii loo baahdo. haddii tallaabadaas ay hirgasho waxaa la filayaa inay sii kordhiso xiisada u dhexaysa Iiraan iyo dalalka reer galbeedka gaar ahaan Maraykanka iyo xulafadiisa kuwaasoo muddo dheer ku eedeynayay Tahraan inay ku howlan tahay qorshe lagu sameynayo hub nukliyeer ah. dowladda Iiraan ayaa dhankeeda marar badan ku adkaysatay in barnaamijkeeda nukliyeerku uu yahay mid nabadeed oo loogu talagalay cilmi baaris iyo soo saarista tamarta. hadalladan ayaa imaanaya xilli gobolka bariga dhexe uu wajahayo xiisado isa soo taraya, waxaana laga cabsi qabaa in hadalla noocan oo kale ay sii adkeeyaan dadaalada diblomaasiyadeed ee lagu xakameynayo khilaafka nukliyeerka ee Iiraan. guud ahaan saaxiibayaal waa nageynta warka channelka dabagalka wararka. haddii aad ku cusubtahay channelkan kusoo biiro subscribe saar, muuqaalkana like saar, share garee oo la wadaag saaxiibada. waad ku mahadsan tahay inaad daawato warkan mid ka xiga ee intaan ku kulmi doono nabadiino nool kulantee iyo amaan Allah.